aragtidaada maxay tahay aragtideeda waxay tahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday inuu raba inuu asaga sida uu raba laga yeelo dadkuna qaarkood weli dhiigga caddaa kama dhamaan dhiiggooduna fresh ah ku jiro ma rabaan inay kelmadaas qaataan ama ay yeelaan annagana waa la qabnaa waxa ku horgudban waxay tahay kaala ii imow aan kuu taliye iyo iima talinay sida aan wada tashano ma ku aaminaya halkaas imow kaale aan wada tashano iyo ma wada tashanay kaale aan kuu taliye sheekada maraysaa marka haddaan kuu soo koobo wallaahi oo billaah oo tallaa cunfi qabiil iyo nacayb qabiil iguma jiro muqdishoan ku dhashay ku koray alxamdulilah qof maanta qolo aan nacbahay ma jirto haddana mararka qaarkood markaan aniga dembi galo oo aan dad islaameed dembi ka galo waa inay adeeraday iyo awowayaashay iyo ehelkay ay qaban karaan farmaajo dadkiisa xataa waa ku dhiiran la-yihiin war waxyaalaha qaarkood waa qalad inay ka hadlaan waad la socotaa cabdirashiid janan miyaa la yidhaha soo dhaweyn boqortooyo loo sameeyey abu mansuur robow 2 sano miya 3 sano isku xiran yahay waxyaalaha qaarkood aqligaaga logic fiiri ninkii in la yidhaha waa dambiile oo maxkamad la geeyo oo la xukumo waa baab inuusan dambiile ahayn oo la daayana waa baab labaad kan hadeer lagu eedeynaya inuu dad shacaba ku laayagado ayaa soo dhaweynta aragtay iyo diyaaradaha aragtay iyo qarashka aragtay loo galay ma fahmaysaa aniga hadeertaan siyaasad ka sokow ganacsadaan ah canshuuraa laga qaadaa waa dhiibaa xoolahaygii ayaa diyaarada lagu raroyaa ma aamusaa ma seexana maanta jiifka aan seexdo ayaan berri ka shalaynaa waxaan ku talin lahaa aniga dadka reer muqdisho inta siyaasadda qaabka daran ee ku darsashada iyo dictatorship ka soo horjeedo maanta haddaysan kaceen wallahi berriyay ka shalaynayaan waxba yaan la dhihin midowga musharaxiinta yaan la dhihin odayaasha dhaqanka nin walbay u taallaa haddaan maanta laga dhidhin maalin waxaa la gaaraa dhegay faray ee ka dhacayso